بسم الله الرحمن الرحيم مقعيقو عن ترسيد حسين وحنكوك سلويني حارون دبافو وحربنا هنا كشقينا لحدان سؤال ميشا كويالو وحنا كسو قادة بوغل حريرو كوس مانجيريال اكاونتين هذا لحدان سؤال waa lix qarash oo kala duwan ee warshad ay galayso waxaana laga rabaa inaan u kala saarno lixdan qarash laba qeybood oo waaweyn in uu qarashka yahay product cost amba in uu yahay period cost waxaa muhiim noqonaysa inaad fahamsan tahay product cost wax loola jeedo iyo period cost wax loola jeedo product cost waxa loola jeedaa waa qarash shirkadda ay galayso isla markaasna qayb ka noqonaya alaabta la soo saarayo marka waxa lagu shubaa account asade oo loo yaqaan inventory wuxuu ka soo muuqanayaa balance sheet-ka qaybta inventory-ga qarashka hadii uu noqdo period cost waa qarash expense caadi ah shirkadda ay galayso wuxuu ka soo muuqanayaa income statement-geeda qaybta expense-ga bishaas ayuu wuxuu ka mid noqonayaa qarashaadka shirkadda ay galayso marka qarashka period cost-ka hoos imaanayo asaga asad lagama dhigo wuxuu noqonayaa expense caadi marka lixdan qarash mid kastaba waa fasiraya kadibna waa ka wada shaqeynayna hadii la raado waxa rabaa inay igla shaqeysid kaliya inay igu dhaaftid maahan waa isla shaqeynayna qarashka ugu horeeya ayaan ka bilaabayaa wuxuu noqonayaa manufacturing overhead waxa laga wadaa qarashaad kala duwan oo dadban oo qayb ka noqonaya alaabtaas la soo saarayo wuxuuna noqonayaa hadii aad isku deedid bal iga hormar ma product cost mise period cost product cost ayuu noqonayaa marka qarashkan wuxuu ka mid noqonayaa qarashaadka ay u isticmaalaysa ama lacagaha ay u isticmaalaysa alaabta inay ku farsamayso warshadda marka qayb ka mid ah inventory-ga ayuu noqonayaa marka wuxuu hoos imaanayaa sectionkan ama qaybtan loo yaqaan product cost-ka su'aasha ku xigta ayaan u soo gudbayaa waxayna noqonaysaa selling expenses waa qarashaadka shirkadda ay u galayso sida ay u bixi lahayd mushaaraadka shaqaalaha wax iibiyo oo sida adiga alaabta markii la diyaariyo oo warshadda ay ka soo baxdo baqar ayaa la gelinayaa baqarkana kadib waxaa jiro shaqaale ka shaqeynayaan oo iibinayaan marka mushaharka iyo commissionka iyo bonuska waxay qaadanayaan dhan waxa hoos imaanaya wax loo yaqaan selling expense wuxuuna ku aftirsan doonaa qaybta period cost very good waxaan malaysaa inaad si fiican uga shaqeynayso su'aalaha wuxuu noqonayaa qarash la expense gareynayo wuxuuna ka soo muuqanayaa income statement-ga bishaas qarashaadka shirkadda ee gashay oo income statement-ga ka soo muuqanayo qayb ka mid ah ayuu noqonayaa haddii aan su'aasha saddexaad u soo gudubno waxay tahay qarash la yiraahdo administrative expenses waa lacagaha la siinayo maamulka sare ee shirkadda ama warshadda waa lacagaha mushaaraadka booniska commissionada ay qaadanayaan wuxuuna hoos imaanayaa qaybta period cost-ka wuxuu noqonayaa qarash la expense gareynayo isla waqtiga la galay wuxuuna ka soo muuqanayaa income statement-ga qaybta expense-yada bishaas income statement-ga aan soo bandhigayno ayuu ka mid noqonayaa marka asad ma noqonayo waxaan u soo gudbayaa su'aasha afaraad waxaana laga rabaa inaan sheegno advertising expense qaybta oo hoos tagayo qarashkan waxaa loo galaa sidii lagu xayisiin lahay alaabtan warshadda ay soo saartay baqaarka ay soo dhigtay ay rabtay markii inay macaamiisheeda ay ka iibiso sidii loo wargeli lahay marka waa lacagihii lagu bixinayay idaacadihii tviyadii xayisiintii facebookii instagramkii tiktokii boorarkii wax walbaba waxay noqonayaan qarashaadkii lagu bixinayay advertising expense wuxuuna hoos imaanayaa sectionka ama qaybta loo yaqaano period cost oo expense ayaa laga dhigayaa bishaas income statement-ga qarashaadka qaybta expense-ga ayuu ka soo muuqanaya waana la expense gareynayaa waxaan rabaa inaan u sii gudbo su'aasha ku xigta oo ah direct labor waa shaqaalaha sida tooska gacanta ugu hayo alaabtan ay farsameynayso warshadda lacagaha la siinayay waxayna noqonaysaa amba waxay hoos imaanaysaa lacagaas la bixinayo shaqaalaha sida tooska ah gacanta ugu hayo farsameynta alaabta warshadda ay soo saarayso product cost marka lacagtaas waa qayb ka mid ah alaabtan la sameeyey akoonka asadka ayaan ku shubi doonaa waxaana kasoo muuqanayaa qaybta balance sheet-ka ayuu kasoo muuqanayaa su-aasha ugu dambeyso oo aan kusoo gabagabeynayno su'aalaha ayaa wuxuu noqonayaa direct materials waa alaabta ciirinta amba alaabta caadiga ee loo isticmaalayo in lagu farsameeyo shaygan warshadda ay soo saarayso isagana wuxuu hoos imaanayaa sectionka loo yaqaano product cost marka waa qayb ka mid ah alaabta la farsameeyey ayuu noqonayaa marka inventory-ga ayaa lagu aruurinaya waxaana kasoo muuqanayaa balance sheet-ka qaybta inventory-ga waxaan rabaa marka inaan soo koobo lixdan su'aal
qarashna waxaan ku sheegnay inuu hoos imaanayo product cost, qarashna waxaan ku sheegnay inuu hoos imaanayo period cost. waa direct material oo ah alaabta la isticmaalayo, direct labor waa shaqaale sida tooska gacanta ugu haya alaabtaas farsameynteeda lacagii aan ku bixinaynay, iyo overheadka amba manufacturing overheadka oo ah qarashaad kala duwan oo aan si toos ah alaabta loo saari karin laakiin qayb kamid ah alaabta la soo saarayo ah. marka saddexdaas nooc qarash waxay hoos imaanayaan product cost. mararka qaarkood waxaa loo yaqaanaa inventory amba inventoriable cost waa loo yaqaanaa, waxaana lagu shubayaa akoonka inventoryga. markii laga hadlayo warshadahan wax soo saara saddex nooc ee akoon ay leeyihiin: raw material, waxay leeyihiin work in process, waxay leeyihiin finished goods. marka qayb kamid ah inventoryga ayuu noqonayaa. hadba stage kala taagan yahay laga hadlayaa. waxaa jiro wixii intaas ka soo haray ee qarashaad ee warshada ay galayso wuxuu iska noqonayaa period cost. waxaa laga wadaa periodkaas amba xilligaas income statementiga la diyaarinayo ee qarashka la galayo ayaa waxaa lagu shubayaa expensigii income statementigii kasoo muuqanaya bishaas shirkadda qarashaadkaas ee gashay. marka waa la expense garaynayaa, net income-ka ayuu ka go-ayaa, meeshaas ayay howshiisa ay ku dhammaanaysaa. laakiin qarashaadkan aan ku shubnay product cost-ka asaga expense ma noqonayo, wuxuu noqonayaa marka hore asset, balance sheet-ka qaybta asset-ka ayuu kasoo muuqanayaa. wuxuu expense noqon doonaa markii alaabtaas la iibiyo, alaabta markaa iibana kadib ayuu expense noqonaya, wuxuuna ku dhici doonaa akoon loo yaqaano cost of goods sold. laakiin intaa wixii ka horeeya qarashaadkan la galayo direct material, direct labor, manufacturing overheadka markii la isku wada geeyo waxaa lagu shubayaa akoonkii inventoryga ayaa lagu sii shubayaa oo asset ayaa laga dhigayaa. waa qarash sax, laakiin waa qarash waqtigiisa aan la gaarin. waqtigiisa waxaa la gaarayaa markii la iibiyo kadib ayaa cost of goods sold lagu wareeji doonaa. laakiin inta ka horeyso wuxuu noqonayaa hanti shirkadda ay leedahay ee baqaarka ugu jiro. xarunta baafo waa xarun ku diyaarisay koorsooyin aad u fara badan. haddii magaalada muqdisho aad joogtid waxaa noogu imaanaysaa xarunteena ku taala suuqa bakaaraha, masaajidkan Abu Hurayra agtiisa daba ku yaalo loo yaqaano Bacdo Plaza, biyaanada labaad ayaa deganahay, amba nambarka ayaa naga soo wicaysaa saa tilmaam aan kuu siino. meeshaas waxaan kugu haynaa koorsooyin aad u fara badan oo galaas aan ku dhigno. xarunta way diyaarsantahay, way qalabaysantahay, kombiyuutarada waxna waa ku wada diyaarinay. waxaan rabnaa keliya adoo socota inaad noo imaatid waxna aan ku barno. haddii aadan xamar joogin oo jaaniskaas aadan haysanin oo gobolada wadanka aad joogtid amba wadamada dariska amba caalamka, waxaa jira nidaam online ah koorsooyin aan kugu diyaarino aad ka faa'iidaysan kartid. marka waxaad samaynaysaa nambarka shaashada hortaada ka muuqda whatsappkiisa ayaa nagala soo hadlaysaa si koorsooyinka online-ka xogtooda aan kugu soo dirno. haddii aad ku qanacdina hore aan kaaga bilowno. aad iyo aad mahadsantahay.